saddexda qof ee ugu horeysa uu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam ee naarta lagu tuuri doonana waa saddexde waa caalim waa taajir sakhi aha iyo nin mujaahid ahaayo loo maleynayay inuu diin u dhintay saddex amal oo waaweyn bay la imanayaan kan waa mujaahid buu ahaa kana wuxuu ahaa caalim buu ahaa ummadu cilmiga barayo qaari buu ahaa kana wuxuu ahaa maaragtaan sakhi maalqabeen ayuu ahaa xoolihiisu u bixin jiray saddexda amal ay la yimaadeen ilaahay hortii saddexda amal ba waxa ku ladhnaa maaragtaan shirki ba ku ladhnaa dadna markaas ilaahay odhanaya adu waad u dhimatay waad soo dhimatay laakiin aniga dartay umaad soo dhimane in laga yiraahdo hebel waa nin dagaalyahan ayaad u soo dhimatay waana lagu yiri adiguna qaari baad ahayd quraan akhris fiican ama waacid umada wacdi ayaad ahayd oo dadku ay hadalkiisa dhageystaan wacdiga markaad jeedinaysid umada wax u sheegaysa ama aad wax baraysidna aniga dartay umaad barayne hebel waa nin caynkaas oo umada wax u sheego carab fasiixi ayaa lagu yiraahdaa islahayd kana waxa la odhanayaa adiguna nin maalka bixiyaad ahayd oo meel kasto khayr xoolaha waad ku bixinaysay haday masaajid tahay haday madaaris tahay haday ay taam tahay laakiin waxaad u bixinaysay waa hebel waa sakhi hal lagu yiraahdo saddexdii naas waa leeyni yiri adduunka dusheedii agtayda waxaad ku leedihiin waa naarta ku tuura la odhan doonaa xadiiska Abu Hurayra radiyallahu anhu markuu sheegi jiray uu ooyi jiray uu kici jiray uu dhici jiray waa la kicin jiray uu ooyi jiray uu kici jiray markay naftu ay ka bixi inay ka baxdo halis u gaadho ayuu xadiiska nabiga ka maqlay uu sheegi jiray lillahi wa inuu hada qofka muslimku waxa dadka u qaban ilaahay dartii ugu qabo waa inaad ku doontaa amalkaaga aakhiro amalkaaga adduunyada ha ku doonin Abdullah ibn Mubarak rahmatullahi alayhi ayaa lagu yiri manin naas dad ay yihiin noo sheeg markaasuu al ulama dad hadii weydiiseen dad waxa weeyaan waa culimada waa dadka ilaahay cilmigiisa yaqaana waa dadka ilaahay yaqaana aakhirada yaqaana ee shariicada islaamka yaqaana dadkaas uun badada markaas lagu yiri famanil muluk kuwa hadii aad dad ku sheegtay hadana boqoraduna ay yihiin markaas yiri az-zuhad waa dadka zaahidiinta adduunyada ka zaahiday ee adduunyada badbadkeega waxa dulyada waxba aanan u arkayni markaas lagu yiri ma tawaaducana bal noo sheeg tawaaduc muxuu yahay markaas lagu yiri at-takabbur ala al-aghniya dadka hantiilayaasha oo agtaada aan waxba aanan u waxba aad u arkin oo agtaada qiimo aan ku yeelan taas tawaaduc la yiraahdaa buu ku yiri markaas lagu yiri faman as-sufaha dadka sufahaduna ay yihiin man gaabka aqliga aan lahayn wuxuu alladhi yaakulu diina bid-dunya wa qofka magac diineed xambaarsan laakiin magaca diineed haddana dadka adduunyo kaga doonay wajigiisa diineed adduunyada uu isticmaalaya kaasa safiha buu yiri fanuhsan dadka haddaan wax u qabanayno haddaan wax u sheegayno haddaan wax barayno haddaan ihsaan u sameeyno haddaan infaaqinayno waxay naga noqonaysaa waa ilaahay dartii waxa kale uu ku yiri ninkaas inankiisa markuu la dardaarmayay dhibaatada dadku ay adiga kugu sameeyaana ha xasuusan buu ka yiri waxaad noqotaa qof saliim sadri qalbi fiican noqo qalbigaaga waa inuu ahaada nadiif muuminka qalbigiisu غل iyo xasad iyo buqdi waa inuu ka ahaada saliim waakii nabigu laha xadiis fi sunan nin ahlal janna inagu soo bixi doona nin saxaabada kamida soo galo soo weysaystay saxaabadu ninkii bay fiiriyeen haddana maalin labaad buu nabigu nin ahlal janna inoo soo gali doona isla ninkii baa soo galay haddana maalin saddexaad buu nabigu nin ahlal janna inoo soo gali doona isla ninkii baa soo galay Abdullah ibn Amr ibn Aas radiyallahu anhuma ayaa intuu socday buu ninkii marti u noqday wuxuu aabahay baan isa soo diinay in marti qaad markaasuu marti qaaday aabihiina ismay soo diideen wuxuu rabay kaliya inuu arko bal ninkani acmaasha uu ku mutaystay inuu noqdo ahlal janna ha soo aragtid buu ku yiri ha soo aragtid buu islaha iyaku khayrkay ku kala dayanayeen khayrkay u kala badinayeen khayrkay iskaga dayanayeen inagu laakiin maanta maxaan ku kala dayanaa naga zamankeena dadkii adduunyo u tartamayaan adduunyo الكريم في بيتك bishaaro bulshoy haddii barashada qur'aanka loo geli jiray safar hadda waxaad ku baranaysaa qur'aanka iyo culumta islaamka adiga oo jooga hoygaaga ama goobtaada shaqo dugsiga online-ka ee barashada qur'aanka iyo culumta islaamka duruusta sida taxanaha u bixinayo waxaa ka mid ah barashada qur'aanka iyo higaada culumta shareecada tarbiyada ubadka iyo luqadda carabiga qiraa'aadka qur'aanka kariimka iyo barashada salaada isqoristu waa ay socotaa wixii faahfaahinaya intaasi dheer
kala xidhiir telefoonada iyo ciwaanada